howlgalkan ciidanka gaarka ay kumaandoska xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka sameeyeen gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ujeedkiisu ahaa isku furka iyo sifaynta wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar taasoo ay dhib badan ay ku qabeen shacabka u kala socdaala magaalooyinkaas guutada 16aad ee kumaandoska Danab ayaa cagta mariyay jidkooyooyin lagu dhawaateen jiray dadka shacabka waxaana sidoo kale ciidanka wadada dheer ee Muqdisho iyo Jowhar ay ka soo saareen miinooyin lagu talagalay carqaladeynta isku socodka wadadaas gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalig ayaa warbaahinta ciidamada u sheegay in howlgalkan uu bilow u yahay howlgallo ballaaran ay ciidanka kumaandoska ka fulin doonaan guud ahaan deegaanada Hirshabeelle ciidanka Danab gaar ahaan ururka 7aad ee guutada 16aad ayaa sidoo kale talis ciidan ka dhigtay nawaaxiga degmada Jowhar halkaas oo noqon doonta xarunta laga hagi doono howlgallada gobolka taliyaha guutada 16aad ee kumaandoska Danab ayaa dhinaca kale shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka Hirshabeelle ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada si loo baacsado haraadiga naflacaariga nabadiidka al-shabaab Cabdi Fataax Aqyar SNA Radio degmada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle